yeelato suldaanku iyo suldaan u noqonay caaqilku say u noqonay ila caaqilku waa caaqil waa qofkii xidhaha ahaaye in buu maamulaa markay iska wada baal samaysmaan egtaasi dhaqankii aynu lahayn soo jireenka ee aynu kaga badbaadnay burburkii colaadihii dagaalkii sokeeye ee nabadda xidhay ee colaadda afjaray waa dhaqankii oo burbur ku socdo markii lagu dhawaaqay natiijada dabadeedna maalmaha waxaa bilaabmay shaqaaqadii ceergaabo maalin anigii taliyii hore booliiska annagoo la fadhiina madaxweynihii hore Muuse Biixi ayaa waa markii natiijada lagu dhawaaqay bishii kala guurka lagu jiray ee maalmo yar ka soo wareegtay ayuu wuxuu yidhi hadduu dagaalka ceergaabo bilaamo dabagal wuxuu ku yidhi madaxweynihii cusbaa la doortay u tago waxaad ku tiraahdaa diyaar garow waxaan kugu wareejinayaa caqabado badan baa haysta waxaa iminka dadkaa yaraysanaya majority-ga dadkeenu waa bilaa camal dhaqaaluhu aad buu uma fiicna oo sanadan dambe adduunyada oo dhan dhaqaaleeda aanu fiicnayn innagana dhaqaalu ma fiicna waxa kaloo raaca qaybo ka mid a dalkii colaadaha ka socda haddaan ka warramo xaaladda horta waxaan labaan israacinayaayo dalku wuxuu ka soo gudbay marxalad xasaasiya doorasho adag oo runtii ayaynu ka soo gudbay aanayna soo marin oo aad ay axsaabtii ugu kala qaybsanaayeen wada jir baana lagaga soo gudbay hadday tahay dowladdii hore fadhiday oo madaxweynihii hore hogaaminayay iyo hadday tahay axsaabtii mucaaridka tartamaysay iyo ururadii kale iyaguna ururada axsaabta la tartamaysay iyo mujtamaca waa idinkii ogaa bulshada somaliland si uga qayb qaadatay nabadda loogu baaqay marnabana lagama baqaynin maxay haydeey inaynu natiijada doorasho gaadhno oo dabeedna la aqbalo oo ay ma lagama baqayn laakiin waxaa laga baqayay gacmo khaarajiya cadow khaarajiya laga baqay wada jir baana looga soo gudbay oo iminka laga bilaabo markii guddigii dhaqanku ay soo jeedisay taladii ay soo jeedisay madaxweynihii hore Muuse Biixi waa aqbalay ilaa laga bilaabo doorashada inuu ku dhagay oo dhaqaalaheedii keenay oo doorashadii xilligeedii lagu qabtay oo markii dambe aqbalay oo markii dambena si smooth xilka ku wareejiyay shaqo aad u wanaagsan bay ahayd anigu waxyaalaan xusuusto waxaa ka mid ahaa markii lagu dhawaaqay natiijada dabadeedna maalmaha waxaa bilaabmay shaqaaqadii ceergaabo maalin anigii taliyii hore booliiska annagoo la fadhiina madaxweynihii hore Muuse Biixi ayaa waa markii natiijada lagu dhawaaqay bishii kala guurka lagu jiray ee maalmo yar ka soo wareegtay ayuu wuxuu yidhi hadduu dagaalka ceergaabo bilaamo dabagal wuxuu ku yidhi madaxweynihii cusbaa la doortay u tago waxaad ku tiraahdaa diyaar garow waxaan kugu wareejinayaa laba maalmood gudahood baa xilka kugu wareejinaya waayo si komaanka iyo amarku uga soo baxo hal meela axsaabta mucaaridkana si fiican ba uga qayb galeen tartankii madaxweynaha ururaduna tartankii ururadu ay ka qayb galeen bulshada iyo dadweynihii codeeyey iyo dhaqankii iyo culimmadii iyo waxgaradkii iyo saxaafadii waa laga wada qayb galay wariga ugu weynna wuxuu ahaa inaynu doorashadaa ku burburno oo dalku inaga burburo oo uu dalku halkaa ku banjaro waa ilaahay uu inaga soo badbaadiyey marxalad adag dadka ducadoodii waana nimco weyn waa gallad weyn oo ilaahayna siiyey oo aynu adduunyada kale dheernahay oo in lagu mahadnaqo oo mar walba la xusuusnaado ay tahay hal marxaladaa la soo maray taasi waa mid tan imika taaganna waxa weeye waa marxaladaas maadaama dalkeena caqabado badan haystaan caqabado badan baa haysta waxaa imika dadkaa yaraysanaya majority-ga dadkeenu waa bilaa camal dhaqaaluhu aad buu uma fiicna oo sanadan dambe adduunyada oo dhan dhaqaaleeda aanu fiicnayn innagana dhaqaalu ma fiicna waxa kaloo raaca qaybo ka mid a dalkii colaadaha ka socda duruufo dan uu maanta dalku jirana sidii madaxweynaha horeba ula soo dabaashay ee uu marxaladda ugu dhagay doorashada ee uu soo gudbisiiyey ee uu dhaqaalihii oo adag doorasho dhaqaalaheedu badan yahay uu diyaariyey markii dambe uu aqbalay uu wareejiyey iminkana waxa loo baahan yahay dowladdan iyo xilligan jirta laftigeedu inaynu wada jir kaga gudubno oo la baalis taago oo madaxweynahan cusub ee la doortay jaaniska la siiyo oo la wada shaqeeyo oo unitigii iyo midnimada iyo in wax la wada qabto ay muhiim ahaato waxaynu ognahay dadkeenu iyo dalkeenu inay muddo dheer aynu ku soo jirnay xilligii mucaaradii dowladdii hore ha ahaato iminka ha ahaato iyadoo la isdhaliilayo iyadoo makarasa caqabado badan ay jireen marka wada jirku hadduu ka baxo wada jirka iyo hadduu ummad ka baxo meel ma gaadho halkanun baanaynu leenahay dalkanun baynu leenahay hadduu qalqalacdo inaga arkayna maalintuu dhaqaalaha xumaado qof walba uu saameynaya maalintuu fiican yahay qof walba uu hilinaya wuu saameynaya
maalintii nabadgelyada dhacdo qof walba uu saameynaya qof gaara saameyn maayo gruub gaara saameyn maayo meel gaara saameyn maayo waxa keliya markaa maanta taagan wax weeyaan in wixii maxay ahaydey siyaasada ama axsaaba ama la xidhiidhana loo daayo cidda ehelka u ahee dee mandatedka u ah ee xeerku siiyo dastuurku siiyo axsaabta loo daayo wixii dhaqanana dhaqanka loo daayo wixii shareeca culimada loo daayo cid walba in shaqada loo daayo weeyaan oo lagu kala dambeeyo laakiin hadduu qof waliba wax walba ka jawaabo oo dadka ay hagaan ay hogaamiyaan maxay ahaydey in aanu danaynayn ama dad aan danta ka lahayn ama maxay ahaydey maalin walba dad ma garanaysa intay soo istaagaan dadka say isagoo hor iman lahaayeen marxaladeenu halkan dalkuu ka sii darayaa qofna ka faa'iidi maayo dunidoo dhan baa loo qaxay meel kasta waa la tegey halkanubaa lagu soo noqday waayo halkaasuba la leeyihi kii halkaa tegay carruurtu la soo noqday kii kale isagoo daalan buu soo noqday qaarad iyo dal aan la tegin ma jiro markaa in laga shaqeeyo oo la raaco weeyaan oo la ogaado marxaladda dalku mar walbana dalka marxaladaha dad baa kala soo dabaasha ama madaxweyneyaasha hogaaminaya ha noqdaan ama dadka ka qaatay golayaasha ha noqdaan bulshada ha noqdaan dadka kale indhagaradka ah ee mas-uuliyadaha kala duwan haya noqdaan bulshada kale ee abaabulanaya saxaafadda leh civil society iyo ururada bulshada iyo cid walba leh ha noqdaan oo waxa weeyaan oo shaqo fiican qabanaya markaa taas waxa weeye marxaladdu waa marxalad loo baahan yahay in lagu xisaabtamo markay noqoto arrinta ah dadkan isu jawaabaya iyo waxaan media la isu marinaya weliba dadkii dhaqanka ay hogaaminayaan horta taariikhda inaynu ku qornaa fiican 1991kii markii somaliland lagu dhawaaqayay somaliland oo dhan ay ka wada qayb gashay xuduudaheedii isticmaalkii britishkii laga dhaxlay waxa gebigooduba ay ahaayeen 9 suldaan markaa 30 sano ayaa waxa laga gudbay dalkoo dhan inuu 10 suldaan lahaa iyo maanta inuu jilib yaroo hoose uu leeyahay intaasoo suldaan marka suldaan iyo caaqil laga hadlayana aynu dhinaca kale ka eegnana waa labadu waa laba kelmadood oo carabiya suldaanku waxa weeye waa qofka meel ka taliya iminka markay jilib waloo yar laf yaroo wal mid walba suldaan yeelato suldaanku iyo suldaan u noqonay caaqilku say u noqonay ila caaqilku waa caaqil waa qofkii xidhaha ahaayee in buu maamulaa markay iska wada baal samaysmaan egtaasi dhaqankii aynu lahaynee soo jireenka ee aynu kaga badbaadnay burburkii colaadihii dagaalkii sokeeye ee nabadda xidhay ee colaadda afjaray waa dhaqankii oo burbur ku socdo waana arrin u baahan in laga tashado daba qabto haddii kale ha dhowtoole haddii mustaqbalada dheer colaada yimaadaan waxa weye xidhayaashii markay bataan ee ay boqol isbaal yaacaan ee midi nabad qaato ee mid colaad qaato ee mid hadlo ee mid khayr ku hadlo ee mid shar ku hadlo ee mid ay wada baal socdaan waxa adkaanaysa markaa in nidaamkeeni dhaqanka inaguna waxaynu ku soo caanamaalnay nidaamka casriga iyo ka dhaqanka oo shareecadeena iyo dhaqanka Soomaaliya ku salaysan baynu ku soo sarfaan marka horta waa inaynu fahanno halkaynu ka nimi imikana waad arkaysaan sida u socdaan maalin walba intaas suldaan baa la magacaabaya maalin hebel baa la magacaabaya maalin magacyo taytalo cusub baa la magacaabaya ugaas maxay ahaydey kuwa kale magacyo badan oo kala duwan oo suldaan xitaa ahayn arrintaa markaa dadka ama de imika inta jirtuunbaa dhaqan unahay ma fiicna muddana imika way soo socotay maaha markii koowaad imika bilaamatay sanadadii dambe oo dhan way soo socotay arrintaasi arrintaa dadka dhaqan kale iyo qof kastoo caqli leh waa inuu samaa ka taliyo waa inuu wanaaga ka taliyo waa inuu wax fiican sheego hadduu ka hore khaldamay waa inaanu raacin waa inaanay bulshada kicin iyagoo dan gaara leh qaarkood waxa laga iyagoo dan gaara leh inay dantoodii gaara bulshada ay u adeegayaan waxa weeyaan bulshadu waxba ka faa'iidi mayso hadhow toolana burburka ama mushkiladda timaada qof walba way saameynaysaa dadka acyaanta ah ee sheeganaya inay suldaan yihiin caaqil yihiin waxgarad yihiin mutacalim yihiin sheekh yihiin maxay yeelay qof kaloo mas-uulo yihiin waxa loo baahan yahay inuu dadka samaha ku gudbiyo fariimaha wanaagsan u gudbiyo samataliska u gudbiyo khayrka u gudbiyo ayaa loo baahan yahay arrintaas waa arrin haddii kale jiilasha yaryar ee soo socda way saameynaysaa waxay u arkayaan inay sani sax tahay waxay u arkayaan inay san noloshu tahay waxaa laga yaabaa inay colaad iyo nacayb iyo hatred iyo dhibaatooyin ay ku abuurmaanba ayaa laga yaaba wixiisi waxsaan halka hore kusoo sheegay qof walbana in wixiisa loo daayo siyaasadda cid baa leh
axsaab taale iyaga u jawaabaysa dowladda day magaranaysa ama la hadlayaan ama ay dhaliilayaan iyagaa ku shaqale dhaqanku wax buu leeyahy cid waliba waxbay leedahay culimmadu waxbay leedahay in wanaagga iyo samaan laga taliyo arrintaasi waa arrin muhiima oo lagama maarmaana wadankuna marka runta laga hadlaayo marxalad adigu ka soo gudbay welina marxalad adigu ku jira still wuu ku jira marka dad wada jira ayuunbaa ka gudba haddii wax la kala tabanayo ama wax la isu sheegayo waxa weeyaan hab ka duwan baa la isugu sheegi karaa loo kala taban karaa cid walba khaladkeeda la saari karaa cid walba la eegi karaa haddii wax la kala tabanayo waxa weeyaan cid walba maxay ahaydey dowladeeda la raaci karaa marka anigu waxaan arrintaasaan soo jeedinayaa waxaa kaloo arrintan muhiim oo iyagan laga maarmaana hadal kasta ama wanaaga ama mid aan wanaagsanayn medium baa qaada ama social media ha noqdo ama media kale traditionka ee hore electronic iyo printing iyo cid walba ha noqdo daabacaada ah waxaa loo baahan yahay iyaga laftigoodu inay sharciga raacaan wax wanaagsan bulshada u gudbiyaan wixii dhibaato ku ah ay yareeyaan waayo waa lala xisaabtamaya iminka haddii qofku uu sharcigu qaban waayo waa inuu ogaado ilaahay inuu la xisaabtamo waa inuu ogaado hadalkiisa inuu waarayo berri inuu soo noqonayo inuu sii jiri karo qofkanoo dhintay inuu hadalkiisu fidno loo isticmaali karo ayaa laga yaaba qof dhintay baa ixsaan iyo wanaag iyo hadal fiican u jeediyey sanado iyo qarniyaal laga faa'iidaa qofka kale isaguna hadal reeba ama ha duubo ama ha yidhaahdo ama maxay ahaydeyn ha sheego haddii sanada iyo sanada la isticmaalo oo la eego mar walba dhibaatadu way ku daba imanaysaa dhibaatadu way ku daba imanaysaa maxay ahaydeyn waa muhim jiddan marka inaan saxaafadan waxaan soo jeedinaya iyo cid kastoo hadal duubaysaba inay ka fiirsadaan wuu soo noqonayaa waa la xisaabinaya qof kastoo sii raaco ku camal fala ajarkiisii hadduu wax wanaagsan yahay iyo sharkiisii hadduu shar yahay ayaa laguu qoraya qofkuna inuu maanta ka fikir maayo waa inuu aakhiro ka fikiro waa inuu noloshiisa dambe ka fikiro waa inuu akhlaaqda iyo moralitiga iyo dee wixii uu ka fikira laga maarmaan waa su-aal fiican marka ugu horeysa horta baaqa ama dee soo jeedinta aan diraya waxa weeyaan in bulsho walba waad ogtihiin dalkeena somaliland caqabado waaweyn baa haysta mid bulsho iyo mid dowladeed iyo mid caalami iyo mid xoogagii nala dagaalamaya quwado badan oon doonayn jiritaankeena qarannimadeenna dowladnimadeenna waxaa lagaga gudbayaa markaa oo lagama maarmaana oo muhima in aan soo jeedinaya horta marka ugu horeysa in iskaashi la sameeyo wanaaggana laga shaqeeyo anigoo ka duulaya mas-uuliyadda guud ee qaranka aan u hayo oo isugu jirta mid gaara oo garsoor iyo mid qarannimo iyo mid mas-uuliyad hay-ad dastuuriya ayaan ugu baaqayaa eeg maanta problemkii iyo buuqu wuxuu ka socdaa meel gaar ah ma arkaysid dadkii kale waxa weye wax saa isu radiyaya ma arkaysid marka inay iyaguna shiraan mas-uuliyaddaanoo ka duulaya dadka kale ee walaalahooda ee waddanka kula dhaqana inay iyagana ka soo qeybgeliyaan oo ay la tashadaan waayo shirarkii hore halkan nabadda lagu sameeyeyba waa ogeydeenoo gobolka awdal baa xoog uga qayb qaatay waa laga wada qayb qaatay markaa laakiin maanta mushkiladdu waxay ka taagan tahay beeshaa dhexay ka taagan tahay waxaan u soo jeedinaya anigu dadkan maanta reer sheekh saxaaq waan ugu baaqayaa muddo dheer bay soo murmayeen muddo dheer bay is eedeynayeen muddo dheer bay wax kala tabanayeen inay shir qabsadaan weliba waxaan ugu baaqayaa kuwan isradiyaya ee isu jawaabaya maahee beelaha Soomaaliya reer sheekh saxaaq ama curadka ama ducayeelkooda ah ee Ayuub iyo Toljacle golaha u fidiyaan doorashadii ka hor baan anu salaadiin la soo qaaday kala duwan markay dhowr bilood ka hadhan tahay oo Soomaaliland oo dhana doona markii ay eegeen waxay inay campaign noqoto oo doorashada maanta doorashada ayna dhaafto ayay xataa beelaha reer sheekh saxaaq maalin cuqaaliyi maadeen mid baan la soo qaaday doona waxay dhahdeen war annagaaba isha laga leeyahay marka xitaa hadday iyagu wax tabanayaan gogol ha u fidiyaan labada beelood aan sheegay ee midna tii ugu weyn tahay Axmed Sheekh Saxaaq ka kalena ay tahay beeshii ducada u haysay ha ugu baaqaan gogol ha fidiyaan shir waxa ugu dambeysay 1999 shirkii madaweyne waa waqti dheer waa 36 sano marka shirkaas oo kale lamida waa inay qabtaan markay shirkaa qabsadaan horta marka hore ha toobad keenaan waxba ka khaldan mar labaadka ha ducaystaan mar saddexaadka wixii ay kala tabanayaan ha isu sheegtaan ha garnaqsadaan marka dambana gole dhaqan oo waxaan ka hortaga gole dhaqan
oo arrintan ka hortaga oo wada jira ha samaystaan dadka aan sheegay reer Sheekh Saxaad waxa kale la nool yihiin oo wadanka la leh ummado kale marka ummadaha kale wadanka la leh haddaad u fiirsato imika adeegto dadka af Soomaaliya ku hadla iyo caalamkaba sidan ay isugu jawaabayaan sidan ay isu caayayaan sidan ay isu cid ma arkaysidba dadka xitaa la afka haddaad eegto ummadaha kale qoomiyadaha kale ma arkaysid dad media say isaga caayay dad say isaga jawaabaya waxbaa ka khaldan waxay u baahan yihiin markaa inay saxaan haddii kale way kala irdhoobi way kala dhaqaajin jiilashooda dambe nacay baa geli waxay ogaan doonaan carruurtooda inaan waxba isu ahayn halkaasay dabeedna ku baabi'i doonaan marka anigu waxaan soo jeedinayaa waxbaa la kala daban karaa waxaa laga yaabaa inay qolo walba ama wax tabanayaan ha shiraan ha isu yimaadaan dadka shirkaana ha lagu baaqo oo shirkaasubaa lagaga gudbaya waan u soo jeedinayaa waxa weeye maanta fikrad bay ila muuqataa saxa oo xilligeediiya dadka samataliska ahina arrinta ha dhiirigeliyaan intaasaan ugu baaqayaa baaqa kala guud aan diraya waxa weeye cid kastoo mas-uuliyad haysa mid la dhaariyey iyo mid kaleba inay ka shaqeeyaan wanaagga madaxweynaha maanta yimina madaxda la shaqaynaysa iyo cid waliba inay wada jirka waxa loo dhaariyay inay dadka wada jirka isu keynta isu imaatinka inay ka shaqeeyaan oo ku garab galaan madaxweynuhu si fiican buu wadaa wuxuu ku bilaabay inuu dadka mideeyo dadaal badan buu wadaa hubka dhigis buu galay maxay ahaydey bulshooyinkii qaybihi kala duwanaa buu la kulmayaa cid kasto